maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad muhiim u ah madax-bannaanida dhaqaale. Haddii aad jaamacad dhigato, shaqo cusub bilaabayso, ama aad rabto inaad horumar samayso, madax-bannaanida dhaqaale waa furaha guusha. Marka hore, aan ka hadalno miisaaniyadda. Waa inaad ogaataa halka uu lacagtaadu ku baxayso. La soco qarashaadkaaga oo samayso miisaaniyad kuu saamaxaysa inaad kaydsato qayb ka mid ah dakhligaaga bil kasta. Xasuusnow, halkii shilin waa muhiim. Marka xigta, samayso sanduuq xaalad degdeg ah. Tani waa shabakadaada badbaadada marka ay soo wajahaan qarashaad aan la filayn. Ujeedo inaad kaydsato qarashka nolosha ee 3 ilaa 6 bilood. Hadda, aan u gudubno maalgashiga. Bilow sida ugu dhaqsaha badan ee aad awoodid, xitaa haddii ay tahay lacag yar. Dulsaarka isku dhafan waa saaxiibka ugu fiican halkan. Fiiri sanduuqyada tusmada qiimaha jaban ama ETF-yada, waa kuwo aad u fiican kuwa bilowga ah, waxayna leeyihiin khataro yar. Xitaa haddii ay tahay lacag yar. Qodob kale oo muhiim ah, yaree ama ka fogow deynta. Deynta dulsaarka sare leh waxay si dhab ah u carqaladayn kartaa yoolalkaaga dhaqaale. Diiradda saar bixinta deynta kaarka deynta ama amaahda sida ugu dhaqsaha badan. Oo ha ilaawin ilaha dakhliga badan. Haddii ay tahay shaqo dhinac ah, shaqo madax bannaan, waxaad ku dadaashaa in hanti ka soo gasho maalgashiga yaryar. Kala duwanaanshaha dakhligaaga ayaa dedejin kara wadadaada ku aadan madax bannaanida dhaqaale. Ugu dambayntii, si joogto ah isu baro. Akhriso buugaagta, daawo muuqaalada, qaado koorsooyin online ah. Aqoontu waa awood marka ay timaado maaraynta dhaqaalahaaga. Qaado koorsooyin online ah. Aqoontu waa awood marka ay timaado maaraynta dhaqaalahaaga. Markaa waxaad haysataa hage degdeg ah oo lagu gaarayo madax bannaanida dhaqaale. Maanta bilow oo ku adkayso wadadan. Oo daawo mustaqbalkaaga dhaqaale oo isbeddelaya. Waad ku mahadsan tahay daawashaada.